أذا مريه أذا أفلحوا أقول ديجايو إنتي مذنب أذا مريه أماني هذا وناقنا مدن kula wanaagsan daawadayaal waxaad daawanaysaan tartanka hal abuurka ganacsiga uu maalgelinayo Premier Bank isla markaana uu hal abuuray Ustaad Mubaarak xalqadiisa labaad waxaa ku tartamaya tartamayaasha kala wata magacyada Riyad Food Truck oo ka socda jaamacadda Horseed iyo sidoo kale Kulmiye Milk Dairy oo ka socda jaamacadda Somerville gudiga barnaamijka Professor Mubaarak Ibrahim waa hal abuuraha ayaa aasaasaha barnaamijkan tartanka hal abuurka ganacsiga sidoo kale waa gudoomiyaha jaamacadda Badar wuxuu ku guuleystay in barnaamijkan uu qabsoomo 5 sano oo xiriir ah isla markaana sanadkan markii ugu horeysay uu ka dhacayo magaalada Muqdisho Cabdullaahi Biixi waa khabiir iyo la taliye dhanka tiknoolajiyadda ah waa agaasimaha guud ee shabakadda cilmi baarista iyo waxbarashada Somaliland wuxuu 10 sano ee la soo dhaafay hal abuuray ganacsiyo ay badankoodu guuleysteen Cabdullaahi waxa uu si gaar ah ugu fogaan yahay tiknoolajiyadda waxbarashada iyo kubcinta dhaqaalaha dhalinyarada Soomaaliyeed Professor Cabdirasaaq Xaashi waa khabiir iyo rugcada dhanka waxbarashada ah oo ku dhawaad nus qarni uu ka shaqeynay waxbarashada Soomaaliya wuxuuna shahaado dhanka waxbarashada sare ka qaatay jaamacadda Harvard Professor Cabdirasaaq wuxuu kamid ahaa aasaasiyaashii jaamacadda Jazeera burburkii ka horna wuxuu bare ka ahaa kuliyadda waxbarashada la furay ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Professor Xaashi waa tababare waana aasaasihii iyo maamulaha xarunta tababarka Baka sidoo kale waa hal abuure iskiis u shaqeysto oo ganacsiga ka haysta Master of Business Administration ganacsade Axmed Cali Suldaan waa hal abuure ganacsiga ku soo dhex jiray muddo rubuc qarni ka badan wuxuu aasaasay shirkado iyo mashaariic badan oo guuleystay oo ka sameeyay dhanka hantida maguurtada ah dhismaha saadka daawada iyo adeegyada maaliyadda Suldaan waa agaasimaha guud ee Farmason oo ah shirkad soo dhoofisa cuntada iyo dawooyinka Suldaan hadda waxa uu musharax u yahay inuu qaato PhD waana bare hal abuurka ganacsiga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka waa idin kaga mahadcelinayna waqtigeena mar kalena waxaan u mahadcelinayaa bangiga Premier Bank oo idin dhiirigelinaya ganacsigeena jecel inuu sii hormaro gudigan iyagana u mahadcelinayna waqtigooda noo horaya isla markaana su'aaluhu waxay qayb ka yihiin barnaamijkan sababtoo markasta su'aal la weydiiyo qayb duleesha aad arkaysaa oo muhiim ah in u baahan in la xalliyo waxaan u yeerayaa tartamayaasha saddexaad oo aan jecelahay inay waqtiga daqiiqadaha kooban loogu talagalay ilaaliyaan waa tartamayaasha wata magaca la yiraahdo Riyad Food Truck ee ka socda jaamacadda Horseed ee magaalada Muqdisho qofka u soo jeedin doona daqiiqadaha ee soo jeedin doona u yeerayaa isla markaana aan codsanahay in slaadkiisa loo diyaariyo sidoo kale isna waqtiga uu ilaaliyo qofka ku xiga ee gudiga ah ee hadhow qofka su'aalaha kala jawaabayna haddana uu sii diyaariyay si hadhow daqiiqadaha uu ilaashto soo dhow barnaamijkan ka waran maxaad kala kulantay intaad hadda dadka daawanaysay intaad hore u arkaysay iyo qiimeyntaada ka war wallahi horta barnaamijkan waxa weeyo awanash aad u fiican oo aan daawanaynay labada sano u dambeysayba xiisa weyn aan u qabnay oo si weyn islahayn mar ha imaado magaalada Muqdisho fikirro fara badan iyo waxyaabo badan oo nagu jirin oo naga bedelay wuxuuna noo diyaariyay inaan u diyaar garowno sanadaha soo socda ee sanadkanba qorshayaal aan la imaano waxaan aad ugu mahadcelinayaa Premier Bank oo noo suurtageliyay inaan fikradeena ku soo bandhigno sidoo kale waxaan ugu mahadcelinayaa Ilaahi oo maanta nasiib noogu daray inaan noqdo dadka koowaad lagu bilaabo barnaamijkan sidoo kale waxaan mahadnaqayaa gudiga iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha magaca horta aan wadano waa Riyad Food Truck Riyad Food Truck haddii aan ka bixiyo faahfaahin waa shirkad ama muqaaxi awood u leh inay dhaqaaqdo oo customerkooda raadsato ayadoo oo ugu tagayso goobaha ay joogaan ama ay ku tabayso macaamiisheeda inay ka heli karto sidoo kale Riyad waxay kaga duwan tahay ganacsiyada kaleento waxay qabanaysaa adeeg oo ah dhinaca mataqaanay cunto karista cunto nadiif ah caafimaad leh dadka u fiican sidoo kalena fudud oo mataqaanay qofku uusan wax dhib kala kulmaynin Riyad waxay leedahay vision oo ah in mataqaanay ay dalka ku soo kordhiso ganacsi cusub oo ah ganacsi dhaqaaqi karo riski kasta iyo wax kasta oo soo wajahan sidoo kalentana ka gaashaaman karo
sidoo kalena faa'iido u leh dhalinyarada iyo cid kasta oo markaasi businesskooda uu yahay dad dhaqaalahooda aad u hooseeya oo ku bilaabi karo startup-kooda uu yaryahay. sidoo kale Riyadh waxay leedahay wax loo yaqaano mission vision ayay leedahay. visionkeedana waa in aan gaarnaa dhammaan suuqyada cusub iyo suuqyadii hore ee jiray. adeegyada haddii aan soo koobo goobaha aan ka qaban doono, horta kow waa magaalada Muqdisho dhammaan suuqyadeeda kala duwan, khaasatan ilaa Ex Control iyo inta u dhaxayso Xamarweyne. goobaha aan si khaas ah aan targetka noogu ah waa meelaha dalxiisayaasha ay yimaadaan, oo goobaha dalxiisyada Liido, Jazeera ina adeegeedii oo diyaarsan aan ugu geyno meeshii, cunadii oo diyaarsan, cabitaankii oo diyaarsan iyo adeeg fudud oo markiiba loo qaban karo qofkii inaan ugu geyno. Riyadh Food waxay u baahan qarashka ku baxayo aan ugu talagalnay startup-ka waa $9,753. qaabkii u baxayaan haddii aan soo koobo waxaa waaye gaariga koowaad waxaa nooga baxayo $4,000. sidoo kalena shidaalku isticmaalayana oo 3 biloodna $945. sidoo kalena gaaska nooga baxayo waa $300. wajiska 1,040 aan ku bilownay. dadka maamulayo ganacsigaasi haddii la ii muujin lahaa waan jeclaan lahaa oo qolada maamulka hayso ay ii muujin lahaayeen meesha ay ku jiraan sawiraantooda. waa dad professional ah, hore uga soo shaqeeyay maqaaxi, waana labada nin ee iskala mulkilaa, aniga aan kow ka ah oo dacsasaasha ah. waxaan hore uga soo shaqeynay maqaaxiyaha dalka qaar ka mid ah oo walibana bixin jira adeegyo kala duwan. intaas ayaan kusoo koobi karaa faahfaahinteeda. ujeedka ugu weyn ee ugu asaasana waa inaan macaamilka uu helo adeegiisi iyo goobtii mataqaanaa asaga uu joogo in lagu geeyo. bismillaahi raxmaani raxiim. maqaayad waxaa sheegteen luga leh asaas ma si fiican. maqaayad marka laga shaqeynayo wax badan ay u baahan tahay. meelaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah taya dhowrka, si fiican. caafimaadka, si fiican. dadaa maqaayad cunto u karisay, cuntadii waxay u baahan tahay caafimaad. qolo ayaa cunto siisay cayaar ka timid oo halkaas iyo badda ku jirtay, warjeeftay noqdeen dhammaan. arrimahaas maxaa uga tala gasheen? haddana kolley magaalada waan ku arkaa amayna kuwa meelo cunto lagu qaybinayo. horta wuu jiraa barnaamijkan, wuu cusub yahay weliba barnaamijkaas. ma jiraano research soo sameynay, waa u tagnay, waa soo qiimeynay barnaamijkooda. horta saacado kooban uu shaqeeyaa, location kooban uusan dhaafinna way jirtaa lagu yaqaano caan ku yahay. annaga marka waxaan kaga duwanahay kaas inaan dhaqaaqno oo goobaha hadda aan tilmaamo Jazeera kama tahay in aan tagno adeega u geyno waqtiyada kooban ee dadkaas ay joogaan si ay mataqaanaa energy u helaan. sidoo kale su-aashaad i weydiisay ah maadaama loo baahan yahay caafimaadkii in la ilaaliyo maxaad kaga tala gasheen? annaga horta raashinka aan karinayno inta badan wuxuu noqon doonaa mid dabiici ah. waxaan ka fogaan doonaa ama yareyn doonaa waxyaabaha dibadda laga keeno. marka sidoo kalena dad yaqaano oo khibradii u lahaanahay oo kasoo shaqeeyay oo kusoo difaacda waqtigii secondarygooda maqaaxiyo kasoo shaqeyn jiray ayaan nahay oo khibrad u leh. cunooyinka aan karin doonana waa cunooyinkaas aan sheegno dabiiciga iyo waxyaabo yar oon laga maarmi karin oo dadka inta badan ay jecel. dabiiciga waxaa ka mid ah in la sameeyo digirtii laga sameeyo iyo qamandiga laga sameeyo canjeero ama laxoox sida qofku u yaqaano. sidoo kale laga sameeyo sabaayad, laga sameeyo roodhi qamandiga, waxyaabo kalento fara badan waxaa jira in laga sameyn karo sida galeydii iyo waxyaabo kalento. waa ku qoran yahay positionada waxaa ka mid ah Liido, Jazeera, Maka al-Mukarrama, areadan Xamarweyne, meesha dhow nagu wada qoran yihiin. marka meeqa tara ku xisaabtamaysa markaas? ya locationadaas oo dhan meeqa tara ku tala gashay? meeqa gaari? horta location kasta wuxuu leeyahay saacado u badan dadka sida loo naqaan magaalada waan joogno waxaan ku soo baranay. marka waxaan ugu talagalnay hadda hal tara ku bilown maadaama small business aan nahay. target marketka hadda aan fiirinayay waxaa ku qoran dadka aad rabtaa inay wax ka gadaan da'dooda inay u dhaxayso 19 ilaa 40, dakhligooduna u dhaxeeyo 60,000 ilaa 100,000 sanadkii. halka beergar waxaa malaynaa $5 ka jirtay meelahaas.
maya horta waxaan gadayna waa package ma ahan wax qofku intuu iska yimaado qiimaha asaga u goosanay ma aha waa package oo ah bariiska oo kaleento ama haafka bariiska qofku waxaa u raacsan malaygii waxaa u raacsan mooskii cabitaankii $2 tuuranaya wixiina wuu qaadanaya daadaas waxaan ku xulanay waa daada aan ku tabayna lacag 19 ilaa 40 wixii ka sareeyay lagama helo lacag way ku dhagaan wixii ka hooseeya ma haystaan daada waa gartay laakiin restriction kan qofka sanadkii 30,000 inay soo gasho ugu yaraan dad badan oo wax ka gadi lahaydna meesha ka baxay halkaas qofka 30,000 ku dhamaystiraya qofka $30,000 ay sanadkii soo gasho laga yaabaa inuu jid inuu wax ka cuno uu diyaar u ahay inuu maqaayad iyo meel qaali iyo waa taqaanaa dadka marka income-kooda bataba status yiraahdiya si fiican inuu elite inuu tago inuu ka jeclaan lahaa maya waa jirtaa hadda dhaqaalahaas mise kusoo qoranay inta badan ma soo wada galo dadka magaalada jooga ama waddankaba ku nool laakiin waan rajayn doonaa inuu qof kasta u gaar halkaas GDP-ga dadkana uu soo kordhi doonaa dhaqaalaha waddanka waxaa jira mid kaada ka hadlaysay magacaani ma garanaynin laakiin dhowr jeer aan ka gatay Sahara wadadaan Bulxoobay magaciisa inaan sheegno waa dan faa'iido noogu jirto waa caadi Bulxoobay kaas kaliya aniga aan ka warhaya markii horena wadadaan Makal Mukarrama inaan ku arki jiraan malayna daaqal dareen waxa uu gado waxa ugu badan $3.5 marka food cart cidii wax ka gadanaysa inta badan waxay wax ka gadanaysaa qiimo jaban baar jilba jabsi qiimihiisa qiimo dhow inay wax u gado ay si dad badan wax uga iibin karto marka target market-ka iyo waxa gadayso la is waafajiyo is very important waa sax waana ugu talagalnaa artaan umaleynaya waxaa noogu qoran laawar barees sidoo kalena healthy inaan ku dadaalno raashinka bareeskana aan yareeno ma la gaajoonayo sooma su-aasheedu waxaa waaye hadda ma ka shaqaysaan mise market cusub oo ah waxaa waaye customer hadda aad haysataan ama baahidooda aad og tihiin oo waxaan ula jeeda aad ka jawaabaysaan miya mise waa customer hadda kadib inaad raadiysaan aad rabtaan masalan inaad adinka tagtaan jaziirad kusoo baahateen customerkii cabasho qaba dadkaad xalin lahaydeen waa idin diyaar horta taas waa sida aad sheegtay dhalinyaraan nahay inta badan jumcadii waxaad og tahay dhalinyaro xamar joogta inay xeebaha aadaan dhowr jeer waxaa jirta aan tagnay jaziira oo biyo la-aan ay nagu dhacday markaas waxaan go'aansanay in la helo xal loo helo baahida meeshaan ka jirto lagana faa'iidaysto dadkaas dad dhaqaale haysta waa meesha imaanaya dalxiiska u yimid dhaqaalahaasna laga reebo wixii u baahnaa in la siiyo in cunto lagaa gato waxay u baahan tahay in lagu aamino waxa ugu adag ee la kala iibsado waxa waa cuntooyinka marka baraanaana la gataa marka cuntada la gadanayo si baraankaaga aa u dhisto budget badan aa u baahan tahay baabuura u baahan tahay meesha waxa kugu qoran iyo waxaa iskeenaynin targetka aad ku socoto marka ma waxaa rabtaa inaad meel hoose ka bilowdo hal baabuur iyo aad ku socoto baabuurka kira uu kugu ahaado ma saas ujeedkaaga maya qorshaha meesha waxaa ku cad haddii aad haysataan midka update-ka ah baabuur nooca la yaqaano tunista ah oo $4,000 qiimihiisa uu joogo integration ahaanna uu ka baxayo lacag ku dhow $1,000 ku dhow ayaa ku baxayso baabuurkaasi horta aan ku bilaabeynaa halka baabuur inta aan ka gaarayno ama dhaqaalaha nooga saamaxayo inaan ka helno mid kaleento oo asagana suuqa aan kaga shaqaysano asana baahida kale aan ku daboolno marka hadda hal baabuur aan ku bilaabeynaa oon kira nagu ahayn oon gadanayna annaga oo hawshan noo qabanayo maya waa noogu qoranta waxyaabaha targetka meelaha horta waa kow waa areaha jaamacadaha waqtiga ay kasoo baxayaan ardayda iskuullada waxyaabaha aan gadayno waxaa noogu qoran meesha ice cream boqolkiiba 80 waxaa gato waa studentska waa inuu ardada yararka secondary-ga waa noogu cadda meesha bardhay inaan gadno insha Allah 200 xabo oo point ku gadna rajayna dii alaabta dhaqi lahaa iyo intii wax rari lahaa iyo darawaladii qarashkoodana ku soo dar marka labaad way ku jirtaa horta laba qof ka shaqeynayso waa laba qof founders-ka iyo hal dalawar hadda laba chef iyo laba assistant labada chef waa labada assistant lagu sheegay laba chef waa hal qof oo ka shaqeynayo karnay cunadii iyo hal qof oo isna la shaqeynayo gabadhii alaabta dhaqaysa gabadh ma ku filna gabadh soo laga baahnaa nadaafada ragga ilaaliyo gabadh ku filna kani waa Premier Wallet waa habka ugu fudud ugu casrisan uguna ammaansan ee aad wax ku iibsan karto Premier Wallet fududeeyaha nolosha kan waxaan u yeerayaa
cidda nasiib ku yeelatay lambarka afraad nasiibka uu siiyey aan ka rajeynayna waqtigooda iyaguna ilaashadaan soona dhawaadaan waa tiimka wata magaca la yidhaahdo kulmiye milk dairy farm ama nicam si aysan iskugu wareerin tiimka idin haya brobesilka amba shaashadda waa nicam ama kulmiye jaamacadda samafile soo dhowo. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو إبراهيم عنطوب وحكى سعودة جامعة السمفيل. مشروع عن كتر تما وحواي نعم ديري فام أو محل جري حنانو لوضع وأنا عنها سوسارين وقت جو كوبان وح قلي دونا كليه بروبلم معناها وح يقول لي وح مركز أنا أقول دبنات دونه يوح أهيك سنينه وح يقول لي وح تاي سيد الله سبحانه وتعالى وحكسونا نقدر أبارو abaarahaas waxaa macnaha sababi kara inta badan waxaa dabcan waa la iska dareemi karaa cimilada ama ma arkin waxyaabo badan iyo roob la-aanta laakiin haddana maxaa la jiro waxaa jiro diyaar garow la-aan xagga maaragtay abaaraha ama ma arkin ugu diyaar garowin sidaa la socono wadamada caalamka inta badan waxaa laga yaabaa qaabka cunnada maaragtay waana la qabaan in maaragtay abaar dhacdo ama qabow iyo markuu ina yimaado dhulka ay si naqdo wada baraf naqdo oo wax jira ay jirin laakiin waxay nooga duwan yihiin waxay tahay cunnadii isbedel ma arkino caanihii qiimahooda isbedeli maayaan caano yaraan ma dhacayso hilibka sidoo kale iswaxay maayo taasna waxaa sababtay habkeedinta ma aragtay cunnada xoolaha oo ma aragtay anaga u malaysay inaan liidano cunnooyinka kale oo dadka markaa soo saarno maxaa la jiray ma aragtay waa la keediyaa laakiin xagga oo xoolaha looma keediyo dhulka markuu cagaarayo waa iska cunaan haddii haddana ay maaragtay uu cagaarkaas bo ilaa in yar waay hadduu cagaarkaas ba-ana waa la iska waxismaa looma sameeyo habkeedin cunnada maaragtay 6 bil ama sanad la keedinayo kale looma sameeyo laakiin dadka waa loo habeenaa dadka iyo maxaa la dhihi jiray iyo xooluhuna waa isku mid inta badan macnaha sidii animal welfare marka laga hadlayo ilaahi subxaanahu watacaala muxuu leeyahay wamaa min daabatin fi lardi walaa daa'irin yadiiru bijanaaxihi ilaa umamun amhaalakum waa ina la mid marka cuntadooda in aan qorshe u yeelno markii abaaraha yimid marka caqabadaha timid waa aragnay lo-yihii iyo xoolihii inta badan inay magaaladii ma arkin oo lasoo wada gelsho suuqyadii iyo laamiyadii ay maaragtay baabuurtii ay ku waxaynayso marka annaga sidaas guud annaga hadda qof wax ka qaban karna manin laakiin annaga waxaa ay nooga qorshaysan waxay tahay in xanaanadeena cunnada ay cuni lahayd aan coos u beerano sida kulli faaqan qorshahan ay guddiga arkayaan maaragtay silage iyo hay u sameeyno ma arkin habkeedintooda oo maaragtay abaarta iyo arankaba maaragtay ay soo keena filnaato maxaa la jiro waxa aan markaas caanaha waxaynan wax soo saarkeena oonan hoos u dhicin waxa hiigsaneynana waxay tahay in maxaa la jiro maaragtay hadda marka hore muqdisho iyo agaareeda ku sinaanayna laakiin waxa hiigsaneyna waxay tahay in aan caanaha iyo xoolaha markaa horumarino baakeetin sameyno oo aan la tartanno maxaa la jira hadda sida caanaheena waa la tartamaa wadamo dibadda ah waxaan ogaaga yimaada caano oo lasoo baakadeeyey sida tusaalaha taa kasoo qaata almaraaci oo kaleete oo maaragtay dibaddii ina laga keena caanihiyo sidoodiyo waqti dheer joogi karo marka waqtiga uga dhacaya intaas ayaa kusoo goobinaya waxaa higsanaya waxay tahay inaan maaragtay caanaha aan horumarin baakeetina u sameyno oo wadanka dhan aa wada gaarsiino. waa mahadsan tahay daqiiqadahaagii waad kusoo koobtay nuxurka barnaamijkaaga markan waxaan u yeeraynaa qofka kaala socda ee kulmiye okay adig kaliga haddaad tahay guddiga aad kaaga dhex baxaya si su-aal kaaga weydiiyaan mashruucaaga su-aal adig lagu weydiinayo isdeji su-aali ardayda la weydiin jiraa la weydiinaya kow mashruucaagan waa ugubaa ugub waa taqaano wax lagaagama horeeyo curad miya kii koowaad miya mise waa ka jawaabi doontaa midda labaad mashruucan lo adi aad leedahay ama xoolo aad leedahay ubaad quudinaysaa laakiin abaarihii waddanka ka jiray iyo wixii calaf la-aanta iyo hawshaas shaqa kuma saas ma businesskaaga bas marka bulshada waxaa usoo kordhayso abaarihii iyo lagu yareyn kara miyaa jira mise lo-daada in la badbaadiyo reerkaaga qoyskaaga iyo waxaaga businesskaaga inaad badbaadiso laakiin bulshada impact uu ku leeyahay waxay noqonaysaa waa muhiim soo maanta صح ya اوكي ka jawaabay اوكي
midda koowaad oo ah mashruucaada ma u gubaa mashruucyada markii macnaha hal abuur la sameynaa waxaa la lahaa in waxaan kow ma cusub yihiin mase wax jiray ayay ma aragtaa ay ku sameynayaan horumarin ami kaleeta macnaha si horumarinayaan marka mashruuciga maaha mid cusub waxyaabaha resourciga ugu weyn wadanka waa xoolaha taa waa garanaynaa isla wada garanaynaa laakiin waxay tahay habkeedintan anagoo magaaladii joogno inaan maaragtaa waxayna qaabkaas keedintaas wanaagsan oo aynana saameeyeynin maxaa la jiray abaarahaas aan waqtiyada oo roobka da-o aan ka faa'iidaysano habkeedintaas sameyno taas inaan soo kordhinayno oo inta badan markaa dadka tiraadid waxay ahayd xoolahan iyagoo joogo ku fadhiyo meeshooda joogaa wax lagu sii karaa ee dadkaan inta badan qaadanayn kow talabaad maxaa taas sidaa maxaa soo kordhinaysaa dabcan sidaa la soconno hadda waxaa jiro caana yariyaa jirto maadaama abaarihii dhaceen loodii meelaha qaar gobollada qaar ay dhidhimanayaan kuwa qaarna wax soo saarkooda yaraaday waayo haddii caanihii maxaa la jira ay xoolihii wixii ay cunayeen ay waxaysmaan wax soo saarkoodana waa yaraanaa haddadana kula hadlaayo jowhar 40% wuxuu ka yaraa jiray xamar caanaha wax la gado 40% jowhar raqiisanaa jiray haddana isku mid waaye jowhar iyo muqdisho isku mid waaye waxa keenaya waxay tahay in wax soo saarka caanihii oo yaraado maadaama oo loodii waxay cunaysana ma arkin oo meel dheer jiro inta ay aadaysana oo ka baxaya maxaa la jira maaragtay energy ka baxaya tusaale hadda ani hadda ku waco oo meel fog ka waco oo ku dhaho waliima qabaa iima waxay leedahay meeshaas fog dabcan waxa soo cunan waa iga baxayaan marka loodi meel fogay cawska u doonanaysaa haddana energy ku soo waxaynaysaa marka waqtiyadaas oo wax soo saarka liito oo abooraha jiro in anaga wax soo saarkeena wax iska dhimin oo caanihii si toos loo helo taas weey ustaad waxaan ka rabaa si loo sameeyo projectigaaga wuxuu u baahan yahay fulin implementation u baahan yahay sax budget u baahan wax badan u baahan yahay sax okay waa baakadaynaa tiri warshad baakadaysa ma ku taala muqdisho anaa ku baakadaynaysa haywad saddex su'aalan qabaa hal ma si aad u kala oleewood buusiin midda koowaad macnaha waxa hiigsiga oo dambe waaya hadda ma ahan qorshe hadda oo haddan ma ahan macnaha hadda waxaa qorsheynaynaa kaliya caanaha si caadi la bis inaan magaalada u geyno oo abaari aaran ba ama arkin oo si siman ay u helaan bis laakiin waa waxa mishiga dambe waa oo qorsheynaa macnaha maana hadda ma ahan 5 sano oo kale ma ahan okay markaad meel ku xareyso calaf baa laga rabaa calafka wadanka lama yaalo waxa laga soo dhoofiyaa dibadda meeqa cost ku kacayso seen faa'iido uga soo saaray calafka waa beeranaynaa abuurku waa yaalaa wadanku waa yaalaa beerna waa leenahay waa beeranaynaa markuu soo baxo mashiinada aan u baahan lahayn qiimaha costiga waa ku daray oo aan ma arkin oo ku diyaari lahayn silage iyo hayga ku diyaari lahayn beerashada laakiin abuurka wadanka waa laga helaa Nairobi waa ka keensan karnaa sida coosaska Super Napier Rice iyo maaragtay Mulatto 2 noocyadaas oo dhan waa keensan karnaa waana beera karnaa mashiinadii oo inoo fududeynayna waa maarkin waa qorin ustaad aad mahadsan tahay waxaan rabaa inaan laba su'aal aan ku daro actually saddex mid ka mida looda waxa aad ku shaqaynayso oo wax ku soo saaray waa tirada looda marka si toos horta documentka u macada inta xaba yihiin daily production ka meeqa litir caana is leedahay waa soo saari kartaa way ku cadahay waxa soo saari karna looda waxa sheegno meesha ku lifaaqnay loodeena inta badan cunadeedana aad ma arkin ama teedkeeda aad u furan yahay looda caanaheedana waa yirhiin loodeena marka waxa dooranay inkastoo teenana ku dari doono freezing nooc la yiraahdo oo ma arkin waa dooran meesha ku qoran maalintii hadda waxa noo qorshaysan waxay tahay 150 litir inaan soo saarno noocaas freezing ka inta badan kaabaya mid wadanka cunadeedana saaid waaye maxaa la jira caanaheeduna waa yaryahay marka noocaas freezing ka inaan awood xoog saarnay isku dayana mideenana aan ku talaalno insha Allah dinadii waa yaalaan milking commission-ka kale hadii waa haysana waa qiimeene caanaha lisitaankooda iyo hagaajintooda ku waxaysan hal qof oo security ah qoran waxa kale oo ka tagay oo meesha aan ku waxaysmin halna qof dumar ah oo maxaa la jiray weelashii maaragtay oo la dhaqay dhaqitaankooda caanaha hadii caanaha subaxdii naga waxaysmaan oo kale karkariskooda iyo waxaas waxaysmineed iyadana hal qof waay marka hal nin oo security ah oo habeenkii oo kale marka xataa inaan ka maarno laga yaabo hadii xaafadda family-ka ay ku soo dhawaadaan iyo mid oo ka shaqeynayo iyo dhakhtarkaas iyo anagoo ma arkin oo laba qof ku wax su'aal kale ma qabo saadka tirooyinka waa ku qoran yihiin aad leedahay aan soo qaban lahay
marka tale waxaan ku darsan lahaa versionka xiga ee aad soo saari doonto documentkan dabcan oo ku laaban doontaas mar walba improvement ay jiray soo ah so the next wax soo saarka waa ku qoray litrada aad soo saareen oo berdhi waa soo qoray intaas waa raadinaya welina waa soo qaban lahay waa gaarna waa iska wareysanayna laakiin meesha ugu dambeysay ku qoran laga yaabaa documentka sidiisa waxaa ku qoran keliya capex-ka oo wixii kharash gelaya ah iyo waxaa meeshan ku qoran qaybta hore waa inoo kadib ay bedel ku sameeyay iyo costiska oo running costiska ku qoran laakiin ina projection samaysid meeqa litra soo saari doontaa waa qoran laakiin way idin soo gaarin waa qorantahay intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa xalqadii labaad oo ay ku tartamayeen magacyada Riyadh Food Truck oo ah mashruuc marka la eego hal-abuurka wata uu ka socdo jaamacadda Horseed iyo sidoo kale Kulmiye Dairy oo ka socda hal-abuurkaas jaamacadda Somerville xalqadaas labaadna inta ay nooga eg tahay waxaa idin la socodsiinaya anigoo Jacfar ah nabadgelyo